Filimku wuxuu ka bilaabmaa Ruushka halkaas oo qoys ka kooban 3 ay fariistaan webiga agtiisa iyagoo ku raaxaysanaya waqtigooda. Kii ugu yaraa, Sergey Alyoshkov, wuxuu ku faanaa walaalkiis ka weyn iyo hooyadii isaga oo ku saabsan inuu geed dushiisa saaran yahay markii si lama filaan ah diyaaradaha dagaalka Jarmalku ay duuleen. Hooyadu waxay weydiisato carruurteeda in ay si degdeg ah ugu dhuuntaan duurka, laakiin 6 jirku waxa uu sheeganayaa in aanu baqayn oo uu jidka ku dhuftay xabad. Waxaa la yaab leh qof kasta waxa u suurta gashay in uu ku dhufto diyaaradaha oo uu qarxiyo, laakiin markuu hareeraha eego qoyskiisu waa maqan yihiin. Sergey isagoo ka cabsanaya riyadii ayuu ka soo kacay oo u yeedhay hooyadii. Isla markaas qof ayaa garaacay albaabkiisa. Isagoo u malaynaya inay tahay hooyadii wuu u soo orday xaggeeda, laakiin naag daris ah ayaa soo gashay naxdin. Waxay u mahadnaqaysaa Ilaah inuu nooleeyo, waxayna u sheegtay in hooyadii iyo walaalkii ay dhinteen. Wiilka yar ma fahmi karo waxa ay leedahay oo wuxuu rabaa inuu guriga joogo si uu u sugo hooyadiis. Naagtii waxay u sheegtay in Jarmalku soo weeraray oo uu ka cararo. Isla markaas askarta qaar ayaa u soo dhawaaday gurigooda. Naagtu waxay ka dhigtay Sergey inuu ka cararo daaqadda, laakiin waa la toogtay ka hor intaanay ku biirin. Ilmaha yar ee 6 jirka hadda waa keligiis oo aan lahayn qoys iyo asxaab. Markii Sergey uu ka cararayo guriga, wuxuu arkay xaafadiisa oo dhan oo gadaashiisa gubanaysa. Wax aan micno lahayn buu u yeedhay hooyadii oo halkaasuu ka cararay. Markuu cabaar orday, wuxuu ku dhammaanayaa kaynta dhexdeeda. Ilmihii yaraa wuxuu bilaabay inuu u yeedho hooyadiis inay u timaado oo soo qaado, sababtoo ah wuu lumay. Habeenkaas waxa uu joogaa kaynta. Subaxdii xigtay waxaan aragnaa isagoo biyo ka cabba webi markii ay askartii cadowgu u soo dhawaadeen jidkiisa. Sergey isaga oo og in ay khatar yihiin, waxa uu si degdeg ah ugu dhuuntaa xididada geedka. Wuu argagaxaa markii abeesadu u soo dhawaato, laakiin kuma dhawaaqo mana cararo. Sergey aad ayuu uga baqayaa askarta marka loo eego maska. Askartii webiga agtiisa ayay wax ku cuneen oo iska tageen, dabadeedna Sergey wuu qaatay cuntadoodii hadhay oo habeenkii cunay. Si kastaba ha ahaatee, dhammaadka maalinta wiilka yar waa daalan yahay. 2 maalmood gudaheed ma helin cunto ku habboon oo waxa uu socday iyadoo aanay jirin meel uu u socdo. Wuu ku dhacaa markuu dhutimo, laakiin ma joojiyo socodka. Inta uu jidka ku jiro, waxa uu arkay berri duurjoogta ah oo uu cunay, laakiin markaas qarax ayaa gadaashiisa ka dhacay isaga oo yaaban. Wiilku wuu dawaqsan yahay oo wuxuu bilaabay inuu sawiro qof ka dambeeya isaga. Si kastaba ha ahaatee, xitaa xaaladahan oo kale wuu u taagan yahay geesi, wuxuuna u sheegaa qofka inuu haysto qori mana baqanayo. Hore ayuu u dhutinayaa, laakiin wuu suuxsan yahay muddo kadib. Isagoo hurda ayaa 2 askari u soo dhawaadeen. Goobtu waxay u jarmaysaa saldhigga ciidanka Ruushka halkaas oo taliye Kuznetsov uu ku sugayo askartiisa ilaalada ah. Waxay la soo galaan ilmaha yar ee dhaawacan oo daciif ah. Askartu way qoslaan markuu ilmuhu gacan qaado taliyaha, isagoo u soo jeedinaya inuu isbaro. Askartu waxay dareen kalgacal u qabaan ilmaha yar, waxay ka dhigaan inuu biyo cabo oo ay quudiyaan. Kalkaaliye lagu magacaabo Katya ayaa u labisay saboogaha Sergey, oo sidoo kale waxaa soo jiidatay shakhsiyadiisa. Ilmuhu waxa uu weydiistaa in ay boogtiisa ku sawirto taangi, sababtoo ah waxa uu rabaa in uu noqdo askari marka uu weynaado. Xataa askarta dhaawacantay waxay la hadlaan ilmaha oo waxay dareemaan fudayd. Sergey aad ayuu ula dhacay qoriga taliyaha iyo qaybtiisa. Taliyaha ayaa sidoo kale ka jawaabaya dhammaan su'aalaha wiilka yar, uu ogolaanaya inuu ku ciyaaro bastoolada sharafta kadib markii uu rasaasta ka soo saaro. Sergey wuxuu tusay taangiga calooshiisa laga sawiray, wuxuuna ku faanay inuu isagu askari yahay. Wiilku si dhaqso ah ayuu u bogsanayaa. Kalkaalisada Katya waxay weydiisatay taliyaha in uu la sii joogo guutada, balse wuu diiday isaga oo ku andacoonaya in aysan ammaan ahayn. Wuxuu rabaa inuu Sergey u diro xarunta agoomaha. Askartu waxay waqtigooda firaaqada ah la qaateen Sergey. Waxaa soo booqda dad badan maalintii oo dhan. Waxay u keeneen cunto ay qoysaskoodu meel fog uga soo direen, oo xataa ha u ogolaadeen inuu ku ciyaaro indho shareerahooda. Maalin maalmaha ka mid ah ayaa askari u tagay taliyaha si uu uga codsado in wiilka la sii joogo guutada. Askartu waxa ay la yeesheen xidhiir dhow ilmaha oo ay u haystaan in ay iyagu leeyihiin. Joogistiisu waxay ka saartaa culayska dagaalka laabtooda. Si kastaba ha ahaatee, taliyaha ayaa ku adkaysanaya in wiilka loo diro xarunta agoomaha si uu naftiisa u badbaado. Maalintii xigtay, cadowgu waa soo weeraray, askar badanna waa la dhaawacay. Gaadhi ayaa u imaanaya inuu Sergey kaxeeyo si uu u geeyo xarunta agoomaha. Taliyaha ayaa warka u jebiya ilmaha oo hadiyad ahaan u siiya bastoolad sharafeed alwaax. Wiilka ayaa isna isku duubay isagoo ku andacoonaya inuu u baqayo amniga taliyaha. Taliyuhu laabtiisa ayuu ku dhalaalinayaa oo maskaxdiisa ayuu beddelaa.
wuxuu ka codsaday Sergey inuu la joogo askarta sidii wiilkiisa. Habeenkaas askartu waxay wiilka yar u raadiyaan dhar yar oo askari ah, Dayaxa way dhaafeen si uu Sergey la joogo. Taliyaha ayaa toosiyey Sergey oo siiyey dharkii. Wuu xidhaa oo ku ordaa isagoo u eg askari dhab ah. Kuwa kale waxay bilaabeen inay ugu yeedhaan wiilkooda yar ee askariga ah. Inta uu cunugu hareeraha ka cararayo, Jarmalku waxa ay weerar cirka ku qaadeen guutada. Askartu waxay si degdeg ah u kaxeeyeen Sergey meel nabdoon oo ay la dagaalamaan kuwa kale. Tirada askarta dhaawacantay ayaa si degdeg ah u kordhaysa. Sergey waxa uu rabaa inuu naftiisa faa'iido u yeesho, sidaa awgeed waxa uu biyo u keenaa askarta haraadsan. Mid ka mid ah ayaa weydiistay inuu akhriyo warqad ay soo direen qoyskiisu sababtoo ah waxa uu indhaha ku hayaa faashad. Wiilka yar wuxuu rabaa inuu caawiyo, laakiin ma yaqaan sida wax loo akhriyo. Wuxuu qaatay warqadda oo bilaabay inuu sameeyo waxyaabaha ku dul qoran, isagoo ku andacoonaya in sacii askarigu uu nabad ku yahay guriga. Marka askarigu yiraahdo ma haysto sac, kuwa kale waxay u sheegaan inuu la socdo sheekada oo qosliya. Wuxuu akhriyaa xarfaha qof kasta oo kale si la mid ah uu ku farxo. Muuqaalka soo socda waxaan ku aragnaa Katya iyo taliyaha oo hadlaya. Labaduba waxay u muuqdaan kuwo isku soo jiidanaya, laakiin ma qirtaan dareenkooda. Si kastaba ha ahaatee, wiilka ayaa markaas arkay mid ka mid ah saldhigga askariga oo ka burburay weerarka. Taliyuhu waxa uu barayaa inuu koofiyadda iska siibo si uu ixtiraamo askariga dhintay. Maalinta ku xigta, wuxuu ku adkaysanayaa taliyaha inuu u dhiibo hawl oo la siiyo hawl uu ku qaybiyo waraaqaha askarta dhexdooda. Si hufan ayuu hawshiisa u dhameeyaa oo xitaa askarta ayuu ka dhigaa inay u dheelaan. Maalinta xigta, Sergey wax yar buu ka fogaa saldhigga isagoo wata indho-shareerihiisa. Markii uu ku ciyaarayay waxa uu arkay qof lugtiisa ka soo guuraya meel hays ah. Waxa uu dib ugu soo yaacay guutadii oo uu u sheegay askartii waxa uu helay. Askartu way shakiyeen, laakiin raac wiilka si kastaba. Marka ay soo gaadhaan meel u dhow haydhka, waxaa lagu baraarujiyaa inay arkaan laba basaasiin oo Jarmal ah hoosta ku dhuumanaya. Basaasiinta waa la xiraa, waxaana ilmaha lagu ammaanaa caqligiisa. Habeenkaas taliyihii wuxuu tusay Sergey waraaqaha sharciga ah ee korsashadiisa. Hadda wuxuu si rasmi ah u yahay aabaha ilmaha. Sergey wuu og yahay dareenka taliyaha ee Katya, sidaa darteed wuxuu u qaadaa inuu u qirto iyada. Laakiin labadaba waxay arkaan iyada oo la hadlaya nin kale oo si qalad ah u qaadanaysa inay xiisaynayso qof kale. Saldhigga waxaa mar kale weeraray Jarmalku. Markan Sergey waxa uu ku caawiyaa askarta xoogiisa oo dhan, isaga oo siinaya rasaasta askarta ku jirta jiida hore ee dagaalka, laakiin askartii halkaas joogtay waxa ay ku amreen inuu dib ugu noqdo daashka sababtoo ah aad bay khatar ugu tahay dibadda. Markuu soo galo qolka jiifka, wuxuu arkayaa taliyaha iyo kuwa kale oo argagaxsan sababtoo ah xiriirkii taleefanka ee korneylka oo lumay. Askari ayaa loo soo diray inuu hagaajiyo fiilooyinka goy. Sergey wuxuu raacay askariga oo arkay inuu si xun u dhaawacmay. Wuxuu weydiinayaa askariga dhimanaya sida uu u hagaajin karo fiilooyinka oo uu isagu sameeyo. Xidhiidhku wuu soo noqday, waxaana loo yeedhay ciidamo badan. 6 jirku wuxuu badbaadiyaa nafta qof kasta. Kadib waxaan aragnaa taliyaha iyo Katya oo ka hadlaya webiga agtiisa. Taliyaha ayaa ugu dambeyntii qirtay jacaylka uu u qabo, wuxuuna ka codsaday inay noqoto hooyada Sergey. Katya way dhaaftay Dayaxa, laakiin ka hor intaanay waxba oo dhan, askari ayaa u yimid oo siiyey taliyaha warqad isagoo sheegaya in laga soo diray saldhigga. Maalinta xigta, dhammaan askartu waxay u baxayaan saldhiggooda cusub iyaga iyo Sergey. Si kastaba ha ahaatee, intay sii socdeen waxay la kulmeen miino ay ku qaraxday qaar ka mid ah gaadiidkooda. Taliyaha ayaa dhaawacmay iyadoo kooxda oo nidaamsan oo Sergey ay isku dhow yihiin uu ku dhintay qaraxa. Wuu u ooyey oo isku duubay taliyaha. Waxay soo qaadaan kuwa dhaawacmay oo sii wata safarkooda saldhigga cusub. Markay ugu dambeyntii gaadheen saldhigga kale, waxay la kulmaan hogaamiyaha taliyaha guud. Isaguna aad buu ula dhacay hamiga ubadka, wuxuuna u hambaliyeynayaa taliyaha inuu haysto ilmo caqli badan. Maalinta xigta, qaybtooda waxaa la guddoonsiiyaa calanka ilaalada, wiilkuna sidoo kale. Waxa uu ballan qaaday inuu dalkiisa badbaadin doono marka uu generaalku siiyo dufcadiisa. Habeenada ka mid ah ayaa saldhigooda si arxan darro ah loo weeraray, taliyihiina wuxuu ku hoos xanimay burburka. Sergey ayaa u ooyey aabihii wuxuuna isku dayay inuu badbaadiyo. Wuxuu u yeedhay askartii kale, kuwaas oo aakhirkii soo saaray taliyaha. Maalintii xigtay, Sergey wuxuu u soo dhowaaday taliya dhaawacmay, gacmihiisana way dhaawacmeen isagoo isku dayaya inuu badbaadiyo taliyaha. Ilmuhu hadda waa qayb aan la kala saari karin oo ka mid ah kooxda. Malaha qoys agtooda ah, wuxuuna u guuraa meel kasta oo ay ka galaan dagaalka. Filimku wuxuu dhammaanayaa iyadoo la arkay guutada oo u guuraysa saldhig kale. Cod gadaal ka soo baxay ayaa sheegaya inuu xitaa ka qayb qaatay dagaalkii Stalingrad oo uu askarta la gaaray Poland.
hadda waxaa loo yaqaanaa askariga ugu dada yar adduunka abid iyo sheekadii geesinimada lahayd geesinimadiisa hadda waxaa lagu faafiyey adduunka oo dhan sabskrayb saar si aad u hesho muuqaalo badan oo noocan oo kale ah sii sharagaree linkiga oo la wadaag asxaabtaada si aad u caawiso kanaalka hoos noogu reeb fikirkaaga waad ku mahadsan tahay daawashada